السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن qodobada warka maanta idinku haynana waxa kamid ah kumanaan qof oo ka soo tahriibay dalka India dibna ugu noqday isla India malaayiin qof oo ka kala yimi wadanka Pakistan Bangladesh iyo India oo soo gaaray wadanka Malaysia hooyo iyo wiilkeeda oo kala maqnaan 32 sano dibna u midoobay wadanka China qodobada kale aan idin haynana waxa kamid ah shil diyaareed oo ka dhacay dalka Pakistan imise qof ayaa ku dhintay qodobada kale aan idinku haynana waxa kamid ah wadanka China oo dib uga jafay mashaariicii kala duwaneed iyo shirkadaha wax soo saarka intaas waa qodobada warkaroon kuna soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan daawade hadduu kugu cusub yahay channelkani fadlan subscribe noo saar mahadsanid Initiating system 1. System 1 loaded. isku soo laabasho wacan oo wanaagsan halkaad wararka kala socotaana waa ogaalka macluumaadada TV taariikhdu maanta waa 2020 bisha shanaad 23keeda malaayiin qof oo u dhashay dalka India ahna muhaajiriin shaqaystayaal una dhashay dalka India ayaa ku barakacay dhammaanba gobolada dalkaasi India kadib saameyntii xumeyd ee ku reebay xanuunka COVID-19 xanuunka COVID-19 ayaa kaga tagin dadka muhaajiriinta ah ee shaqaystayaasha muruqmaalka ahaa wax shaqo ah ama waxay gacantooda ku hayba balse dalka India ayaa nabar kaga jira qaaradda Aasiya wadamada sida xunu galay xanuunka COVID-19 inta kiis ee laga helay xanuunka COVID-19 wadanka India waxa lagu qiyaasaa ilaa 10,000 oo qof hay-adda NGO ayaa la tacaalaysa dadkan sidii ay u gaarsiin lahayd cunto iyo raashin waa kan Ilyas Sheekh oo kamid ah dadka ku dhibaatoonaya halka markii aan weydiisanay mulkeelihii mishaarkayagii wuxuu nagu yiri waxba idin ma hayo laakiin haddii aad noqonaysaan iska taga wuxuu kaliya uu bixiyay in yaroo cunto aan ku soo marnay wadada laakiin waxaan iminka doonaynaa inaan ku noqono goboladayadii laakiin wax lacaga namuu siinin maxaan qabanaa balse iminka xagee baan aadnaa waxaan ka baqanaynaa xanuunkan COVID-19 iminkii haddaan eegno xagga iyo wadanka Malaysia waxa soo gaaray dad muhaajiriin oo lagu qiyaasay ilaa iyo 200 dadkani waxay ka kala yimaadeen ilaa 4 wadanka Indonesia wadanka Pakistan wadanka Malaysia iyo wadanka India dadkan oo ka soo qaxay dhibaatooyinka ka jira wadamadooda ayaa soo gaaray wadanka Malaysia wuxuu ku jiraa xaalad aan la isku baxaynin taas oo keenay xanuunka COVID-19 dadkan ayaa waxay yimaadeen tuulada u dhow magaalada Kuala Lumpur taas oo Betalina Java loo yaqaano magaalada Betalina Java waxa laga diiwaangeliyay ilaa 26 kiis oo xanuunka COVID-19 ah balse dadkan yimi waa dad ka caafimaad qaba xanuunka COVID-19 wadanka Malaysia waxa lagu qiyaasaa inta kiis ee laga diiwaangeliyay ilaa hadda waa 6978 qof balse waxa dhintay 114 qof wadanka China waxa dib u midoobay hooyo iyo cunugeedii ay dhashay iyaga oo kala maqnaa muddo ku dhow 32 sano hooyada dhashay cunugan oo loo yaqaano Lee iyo wiilka oo loo yaqaano Georgia ayaa isku dambeysay taariikhdu markay ahayd 1988 Georgia isaga oo yar oo cunuga ayaa laga xaday hodheel ay ka deganayeen caasimadda wadanka China hodheel ay ka deganayeen qoyskiisu ayaa laga xaday Georgia isaga oo yar oonan aqli lahayn hase yeeshee hooyada dhashay cunugan oo loo yaqaano Lee ayaa baadigoob ugu jirtay si ay wiilkeeda u heli lahayd balse taariikhdu markay ahayd 2019 ayay soo dhigtay warqad ay ku baadigoobayso wiilkeeda Georgia warbaahinta South China Morning balse waa lagu guuleystay oo waxa la helay wiilkii 2020 bishii shanaad 18 May isla wadanka China ayaan gudaha kaga jirnaaye wadanka China wuxuu dib u bilaabay ganacsigiisii iyo sameyntiisii alaabaha uu dhoofin jiray
waddanka China wuxuu xagga hore kaga jiray liiska dhoofiya ama wax soo saara qalabka la isticmaalo, hadday tahay dharka, tiknoolajiyadda, moobilada iyo agabyada ku shaqeeya electricity-ga. waddanka China xanuunka COVID-19 oo kasoo bilaabmay markay taariikhda 2019 soona ifbaxay 2020 ayaa ku reebay saameyn dhaqaale, balse iminka waxaa la rajaynayaa inuu ku soo noqdo heerkiisii wax dhoofinta, wax la soo degidda iyo wax soo saarista intaba. halka inoogu joogto wararkii waxaan idinka haynay caalamka. intaan mid lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak.